raggii hore waxay dhihi jireen isweydiinimo xumee isweydaarsiga xun, oo macnaheedu tahay in su-aal la isweydiiyo ma xumo, laakiin in su-aasha laisla weydaarto oo si xun laiskugu jawaabo oo hadalku meel kala maro ayaa kasii xun. bal haddaba ilaahay waxsan hanaga dhawaajiyo. waxaan isweydiin doonaa su-aalo muhiima. haddii aad u diyaar tahay waad la dhammaysan kartaa. marka dad la baarayo originalitigooda ama asaliyadooda ama waxay kasoo farcameen, waxaa jira dhowr factors oo loo maro ama la tix raaco. number one waxaa ka ah oo muhiimada weyn la siiyaa ama wax badan lagu baaraa human imagination or creativity, inay lagu baaro ama wax lagu baaro lagu soo raadiyo. 4 ayuu kasii kooban yahay oo kale ah languageska, luqadahay ku hadlayeen iyo sii jiritaankooga, kelmadahay isticmaalayeen in laga dhex baaro asaliyadooda iyo xagga ay kasoo jeedaan, kadibna la helo waxay taariikha lahaayeen iyo xadaarada lahaayeen. sidoo kale art and music waxaa lagu baaraa musigii iyo wixii ay soo tumanayeen iyo ay soo ciyaarayeen, ha noqdo mid ciyaar dhaqameed, ha noqdo mid tuman oo music leh, ama siday doonto ha noqoto. waxaa laga dhex helaa asaliyada ama originalityga dadkani ay leeyihiin, iyo wixii farshaxan ahaa, ha noqdo mid sawir ahaaneed, ha noqdo wixii farshaxana dhagax lagu qoro, adu wixii farshaxan oo dhan waxaa lagu baraa dadka asaliyadooda iyo halka ay kasoo jeedaan ama originalitygooga. philosophy-googa hadday wax falsafada ah ka tegeen ama aqoon ah ama science ay adduunka kusoo biiriyeen, science-googii iyo falsafadoodiina waa lagu baaraa. oo xadaarat albaabil markii la baarayo, xadaaradihii saba marka xadaaradaha oo dhan la baarayo, waxaa lagu baaraa waxay kusoo biiriyeen adduunka, ama falsafad ha noqoto sida xadaaradihii Greek oo kale, falsafadooda ayaa hogaamisa oo falsafad ahaan ayay ku nooshahay oo adduunka ay ku dhex socotaa. sidoo kale technology, waxay qalab isticmaalayeen ama agab ay isticmaalayeen laga soo bilaabo casril xajarigii, markii dhagaxa wax lagu goynayey ama dhagax lagu qalayay ama dhagaxu uu noqday birta ugu qaalisan wax lagu qalo ama wax lagu ugaarsado, ilaa xadaaradaas ay kacday iyo heerka ay soo gaadhay. waa qaybta koobaad ee wax lagu baari karo. haddaba intaa oo dhan dadku iyagoo adeegsanaya, gaar ahaan languageskii, art and musicgii, philosophy and sciencekii iyo technologygii iyagoo la isticmaalayo, waxaa jira xadaarad aad u fac weyn oo dad kalena ay ku faanaan maanta, oo heer caalami ah in la sheego inay Soomaalidu lahaayeen, gacmahoogana ka baxday, maantana dad kale ay gacanta ugu jirto ama lagu faano ama adduunka lagu hogaamiyo oo lagu hago. xadaaradaasi waa xadaarad lahaanshadeedu ama magaceegu keliya uu kaa dhigayo ama uu soo saarayo waxaa tahay. xadaaradaas adduunka kale waa lagu ogyahay inay Soomaali lahayd oo xadaarad Soomaaliyeed ay tahay, markii loo eego languageska, art and musicga, technologygii iyo falsafadii iyo sciencekii, wixii oo dhan markii loo eego waa Soomaali ah ama xadaarad Soomaali lahaayeen ay ahayd. baaritaankeyga iyo in la soo raadiyana waa mas-uuliyadeena annaka oo dad tira yar ayaa garanaya. adduunka kale dadka caddaanka ah ama dadka wax qora ama dadka ilbaxay ama dadka adduunka maanta maamulo way garanayaan inay tahay xadaaradan xadaarad Soomaaliyeed. markay dadka kale ku xumaynayaan ama ay dadka kale ku cadaadinayaan ama ay ku dhafoor taabanayaan, waxay ku dhahaan xadaaradaasi waa xadaarad Soomaaliyeed. yacni waa la soo sheegaa, lamana ogolo annaku inaan halkaa gaadhno oon xadaaradaas aan la soo wareejiyo lahaashadeeda. meesha ka dhacday iyo goobteedii waxaaba haba dambeyse, yacni lahaashada inaad dadkaa tahay oo dadkaa kasoo farcantay laguma ogolo. sidoo kale waxaa la dhahaa man laa maadiya lah, qofkaan lahayn maadi iyo xadaarad iyo ilbaxnimo iyo meeluu kasoo jeedo qofkaan lahayn, laa xaadir lah, wax xaadir uu leeyahay oo maanta horumar uu samayn kara ma jiro. xadaaradaha ad arkaysaan mid kastoo midun bay kasoo farcantay. xadaaradda maanta Iiraan ay haysato kasoo qaad,
xadaaradii farisiyiinta ama persiankii kasoo farcantay. xadaarad ayay ka timaadaa. taa Francisco iyo waxa u haysto xadaaradahoogii hore ayay ka timid. xadaarad kaste xadaarad ayay kasoo farcantaa oo ma jirto xadaarad iska kacda bilaa xadaarada hore ama taariikho hore. waa naadir, way dhacdaa laakiin waa naadir. dhalinyarteena haddaba inta aan ku mashquulsannahay annaka dhexdeena ama qabiilcay iyo israacay iyo ereyadan baa anaku leenahay iyo tanaan idinku leedihiin iyo waxyaabaha la halmaala, intaan ku mashquulsannahay siyaasadda, intaad maanta oo dhan aad korsan tahay life 4 saacadood 5 saacadood 6 saacadood oo aad leedahay giifti ii soo dir, maxay ii soo dir, gini ii soo dir, maxay ii soo dirta aad haysid, oo aad dadka aad ka baryaysid in giifti lagu soo diro. halka aad gabadh caaysid eed qol u korsantahay lagu leeyahay wiil iyo gabadh baan isku saaraynaa. waa su-aalahayga baa bilaabay, isweydiintii baa bilaabantay. miyay ka qurux badnayn inaad baaritaan ama cilmi iyo aqoon wax dadkan wax u tari karaya in lasoo sameeyo oo dadka lala wadaago? dhalinyar badan baan arkaa hadda oo ku dadaalaysa oo samaysa isbarbardhig ereyadii xadaaradda isticmaalaysay iyo ereyadan hadda isticmaalo, agabka xadaaradda isticmaalaysay iyo agabka aan isticmaalo ilaa hadda, ciyaarihii xadaaradda laga ciyaari jiray iyo ciyaarahan hadda ciyaarno. dhalinyar isbarbar dhigta oo fara ku tiris ah, akoonadooduna malab dad kuma xidhno, ma haystaan wax dhiirigeliya. hadday heli lahaayeen dad dhiirigeliya ama garab siiya ama u sacabtuma, waxaa dhici kari lahaa waxaa wax ka badan ayay soo bandhigi lahaayeen. ma haystaan dad wax akhrista. hadday wax soo qoraan, hadday wax soo akhriyaan, hadday soo helaan wax annaka naga lumay, ma haystaan dad wax akhriya oo wixii qaadanaya, wixii iyakuna sii ballaadhinaya, wixii raadsanaya ma haystaan. sidaa darteed akoonadoodu aad ayay u yaryihiin, dadku ma xidhno. waxay soo gudbiyaan cidima daawato. waxay soo gudbinayaanna waa mashaariic mustaqbal ahaan hadday ummaddani ay kacdo is afkaratay dhinac isku raacdo ay ku tiirsan lahayd ama ay la soo wareegi lahayd wixeeda. sideed u aragtaa in baaritaan la sameeyo, xadaaraddana la soo raadiyo, hadday noqoto xadaarad Soomaaliyeedna inay noqon dad daanyaro ah oo adduunka kusoo biiray, dad madmadow oo aan asal iyo meelay kasoo jeedaanba lahayn, dad addoommo ah oo weligoodba lasoo addoonsanayay, inaana noqon oo ka baxno oo noqono dad asal iyo taariikh lahaa, adduunka wax ku soo kordhiyey, adduunka dhanba iftiinkoogii lagu joogo. waa su-aalo la isweydiinayo. hadday macno kuu samaynayn la wadaag walaalahaaga kale. haddii sidoo kale aad jeceshahay inaad wax badan kasii ogaatid, baaritaan aan kusoo sameeyo, igu dhiirigeli oo ii reeb sidii caadada ahayd. hore ugu soco, soo gudba qaybta labaad. aad baad mahadsantihiin. asalaamu calaykum.